السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردي كسر دوادة كورسدينا Cisco Certified Network Associate أما exam number كيدو هي 200/301 volume 1.1. كورسدن last update كود دنبيل وسميحي حيد أغسطس بشي هدين دافتي لبكون أفريا لباتن. macalinka koorsada kula socodsiin doona waa anigoo injineer Warda Maxamed Hayba anigu examkan ama Cisco Certified Network Associate waan qaatay shahaadadan waxaan leeyahay khibrad fara badan waxaan ka saacideeyay arday kasto koorsadeedan qaata inuu si fiican concept fiican u ka heli doono oo kana haysto koorsadan ee Cisco Certified ka uu noqon doono examkan uu gali doono koorsadan inta ku guda jirtay waxa dhigan doontaa concept aad u kala duwan koorsadan sidoo kale bishaarada wadada waxa kamid ah inuu qaadan karo level kasta oo ardaynimo haduu qofku Microsoft Office yaqaano dataset oo ku filan tahay because anu koorsadan waxaan ka bilaabay from basic to the advanced bangi waxaan doonayaa in la shaqaadaan ardayda aan concept networking ka haysan up to ilaa dadka ka haysta oo advanced tigina koorsadan waxaan ku dhigan doonaa concept aad u kala duwan waxaad baran doontaa waa maxay networking sidoo la soo xiraa maxaa deviceska isticmaala waa maxay nimsa nooc ba loo qaybiyaa waxaan baran doonaa in marka network la sameeyo ma waxa la isticmaalaa hardcore ma waxa la isticmaalaa wireless hadii xadka la isticmaalo ma xadkaha fiber ka la isticmaalaya mise xadkaha in ku shaqeynay cover wire ku shaqeynay la isticmaalaya hadii wireless tahayna ma toweriska la isticmaalaya iyo antenooyin noociyada la kala isticmaalaya waayahay conceptiga markan isla afkarano waxaan u daadigi doonaa laba process uu u dhaco communication-ku imma inuu u dhaco communication-ku in OSI model u isticmaalaya ama TCP model OSI model kaasi wuxuu leeyahay 7 layers buu ka kooban yahay layer kasta protocol gooni ah ka shaqeeya waxaan dhigan doonaa in detail every protocol kasta iyo layer ku ka shaqeeyo TCP ga waa ka casriga ah hadda la isticmaalo wuxuu ka fudud yahay marka la barbar dhigayo OSI modelka waan baran doonaa ardayo sidoo kale waxaan baran doonaa IP version 4 kan baran doonaa walow IP version 6 hadda soo baxay oo sanadadii u dambeysay la isticmaalayay laakiin Afrika iyo wali waxa isticmaalayay Europe maadaama kombiyuutar ka yar ay leeyihiin Europeanka iyo Afrikaanku Asia iyo America uu ka buuxsamay waxay isticmaalaan IP version 6 laakiin still labadoodaba every router kasta uu isku bedelaa waxa laga doonayaa network engineering inaad IP version 4 configuration kiisa sameyn kartid IP version 6 na at same time ku wada sameyn kartid so inshallah bidna ilaahay kariim detail waxaan baran doonaa IP version 4 ka kadib waxaan arki doonaa sida subnetting-ka loo sameeyo configuration-keeda waan ka soconaynaa waxaan galeynaa qaybta labka markaan galno sidee switch iyo computer la soo xidho oo configuration-kooda loo sameeyaa sidee router iyo switch la soo xidhaa waxaan baran doonaa sidee baan secure uga dhignaa routerkeena iyo kombiyuutardeena waxaan isticmaali doonaa SSH naga isticmaalina protocolkaas ka faa'iideysanayna iyo configuration ka sameyn doonaa ardayowga koorsadan waxa u badnaan doontaa hand on badan ama practice badan bay yeelan doontaa inshallah bidnillaahi kariim waayahay practicalka marka la sameeyo waxaan ku sameynaynaa Cisco Packet Tracer oo application ay leedahay Cisco shirkadaasi laguna talagalay ardaydu inay ku sameeyaan practice-ka as real life lagu eegyahay waan ka soconaynaa ardayo waxaan baran doonaa protocol aad u kala duwan VLAN baan sameyn doonaa switch-keena ka sameyn doonaa VLAN badan ay isku xidhiidhin way arday hadaba waxaan gali doonaa ugu dambeynta hadana inshallah protocolada static laga isticmaalo iyo dynamic routing protocols kuwa loo yaqaan waa kuwa switch-yada iyo routerada dunida configuration-kooda lagu sameeyo xiriir u wada sameeyaan waxaan dhigan doonaa ribka OSPF ka RGB ga iyo protocol yar oo dhammaan hoostooda ka wada shaqeeya ardayga koorsadeeda qaatay wuxuu u diyaarsanaan doonaa inuu examka CCNA uu ku baasi doono inshallah bidnillaahi kariim wilna dhibca sare sidan anigu ugu soo baasay waayahay waxaan dhigan doonaa concept aad u kala duwan sida as network engineering marka tahay protocol gooniya isticmaalaan dadka administrators ka jira so protocolada adigu ku manage gareyn doonta switch-yada iyo routerada aan dhigan doonaa ugu dambeynta waxaan dhigan doonaa IP version 6 conceptyada aad buu balaadhay ardayo halkan kaguma soo wada koobi karaye IP version 6 kuna maadaama dunida hadda casriga isticmaasho routerada iyo switch-yadii dambe la soo saaray 2021 wixii ka dambeeyay IP version 6 automatically ayay la jaan qaadi karayaan kuwa halkii horanaad configuration badan kaaga noqonaysa inaad ku sameeysid waayahay conceptyada halkan kuma soo koobi karna arday koorsada waxaan kugu soo dhaweynayaa CCNA exam numberkeedu yahay 200/301 volume 1.1 soo dhawaarday